maanta waxaa caalamka u astaysan maalinta afka hooye ee adduunka. dal iyo dad walbaana waxay xusaan qiimeeyaan iskana waraystaan xaalka afkoodu ku sugan yahay. sannadahan dambena soomaalida qurbo joogta waxaa kusoo badanayay dadka danaynaya soo noolaynta afka hooyo. soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka ayaa ka mid a qurbo joogta uu ku abuurmay dareenkaasi. geeska geesna magaalooyinka ay soomaalidu ku nooshahay waxaa ka socda mid hore iyo kuwo cusubba dugsiyo af soomaaliga lagu barto ilmaha qurbaha ku korayna amaba ku dhashayna lagu barbaariyo, halka ay soo badanayaan bugaagta iyo muuqaalada youtube-ka ee casharada afka soomaaliga lagu barto. wariyaheena jaamac bulle jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan ku eegaya dadaalada maraykanka ka jira ee afka soomaaliga la halmaala. waxaa kordhay waalid aqoon-yahano iyo xoogsato isugu jirana noqday jiilkii koowaad ee iyaga oo gacanta lahaya la keenay qurbaha dalalka afka ingiriiska looga hadlana looga yaqaan say wallaahi. inkasta oo intooda badan af soomaaligoodu aad u liito, haddana waxaa aad u kordhay dareenka da'yartan ee soomaalinimada, waana midda xiriir toos ah la leh dadaalada cusub iyo kuwii tirada yaraa ee horey u jiray ee maraykanka ka abuurmay ee ah in afka soomaaliga la baro da'yartan. sheekh aadan macalin xasan hilow PhD-diisii waxbarashada waxa uu ku diyaariyey manhajka nebiga maxamed calayhi salaatu wasalaam sidii uu dadka wax u bari jiray iyo isbarbardhigga sida maanta wax loo baro dadka. waxaana uu maamulaa imaam alkaziya institute of america oo ah goob waxbarasho oo hadda lagu dhigo qur-aanka kariimka, luqadda carabiga iyo aqoonta maadiga ee waxbarashada ilmaha. waxa uu sharaxayaa muhiimadda ay qurbojoogta soomaaliyeed khaasatan reer maraykanka u leedahay maalinta afka hooye ee adduunka. bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd. jaamaca ugu horeyntii ilaahay baa mahad iska leh. kadib arrintan oo afka hooyo in loo dabaaldego waxay ila tahay soomaalida inta badan hadda waxaa la ogaaday dadka in luqadeeni ay tahay luqad oo maaragtay hodan ah oo aada u qiimo badan. marka dadkii waagii markii hore lasoo qaxeeyo wadankii la yimid, dadka inta badan waxay iska lahayeen luqadan maba dhumayso. hadda waxaa la ogaaday luqado badan inay yihiin adduunka ka dhumeen. marka luqadeeni ay khatar ku sugan tahay inay maaragtay luqadahaas ay waxba ugama duwana. marka in soomaalida hadda maraykanka joogto iyo maaragtay north america hadda waxaa aada loogu baraarugay in dib caruurtii iyo ubadkii maaragtay luqadda dib loo baro. marka dareenkaasba hadda aada usoo batay. waagi hore waxaa laga baqi jiray marka ilmaha diintii waa aad bay ugu dadaaleen. marka luqadii baa meesha ka baxday. marka waalidiintii heer waxaa gaadeen caruurtii dhalan ay isfahmi karin. marka dareenkii af soomaaliya in maaragtay in lasoo nooleeyo caruurtii la baro oo aan af soomaaliga aqoonin, taas baa keentay. duqa magaalada Seattle ee gobolka Washington ee galbeedka Maraykanka, Jenny Burkan, waxa ay February 9 u aqoonsatay maalinta barashada afka Soomaaliga. arrintaasi waxa ay ka timid kadib markii hooyooyin reer Seattle ay qoreen buug afka Soomaaliga laga barto. sidee ayay ku suurta gashay in buuggaasi la qoro markii horeba? Farxiye Yuusuf Maxamed waa agaasimaha ururka nabadda qoysaska Soomaaliyeed ee Seattle. fikirka igu yimid waxay tahay aniga oo u shaqeeya bulshada Soomaaliyeed. marka meel badan ayaan tagay, iskuulaad ama hooyooyin, maadaama aan faamiliyada la caawiyo. waxaan arkay inay ciyaalkii luqadani ka luntay. library-ga haddaad tagtina buug Soomaali fiican oo qoran uusan jirin. buugaagti waxay ay yihiin ama buugaag inta koobi laga sameeyey ama buugaagta sheekooyinka ah sida wiilwaal oo kale, waxa ayaa qornaa. ma laheen buug ay ciyaalka ku baran karaan alfabet Soomaali ba'ta'jadi wadankeena aan kusoo baranay. marka ma lahan. marka taa ayaa igu kaliftay in aan fikradan buugga markasta waan ka fikiri jiray inaan buuggi sameeyo. runta waa wargeys afka Soomaaliga ku qoran oo ka soo baxo Seattle, waxaana tafaftira ka ah Maxamuud Yuusuf. Maxamuud waxa uu tafaftira sare ka ahaa wargeyskii Xidigta Oktoobar ee sanadkii 1984 ilaa 91. waxa uu sharaxayaa doorka ku baraarugsanaanta af Soomaaliga ee bulshada reer Seattle uu ka qaatay wargeyskiisa Runta News. horta wargeyskani wuxuu kasoo bilowday Nairobi, Kenya, sanadkii 1995
intaa kadib markaas waxaan usoo guuray America 1996 ama 1996 marka aan soo degnay magaalada dad badan ma joogin oo Soomaali ah laakiin durba waxaa bilowday Soomaali inay soo ururto ama soo degto marka wargeyskii dib u bilaabay 2000 wuxuuna noqday wargeys hadda aad looga yaqaano Seattle iyo agaheeda waa Somali English waana print sidoo kale waxa waaye waa daabacad waa sidoo kale waa internet haddana waxaan ku darnay video community-gana magacaasi runta hadda gaala badan baa taqaano ajnabi fara badan qayb weyn buu ka noqday magaca community-ga in ay leeyihiin cod magacooda ku hadla isku xilkooda abaabulkooda isku hayntooda Imam Al-Qasiya Institute of America dugsigani waxa uu ku yaalaa gobolka Virginia ee duleedka Washington DC oo ay ku taalo xarunta VOA-da dhawaan ayaa la qorsheeyay in afka Soomaaliga lagu daro daruusta ka baxda dugsigaasi Imam Al-Qasiya Institute waa kan Sheekh Aadan oo sharaxaad ka bixinaya faa'iidada ilmaha Mareykanka ku koraa ama ku dhashay ay ka heli karaan barashada afka hooyo in luqadii iyo maaragtay dhaqankii iyo haddana la baro luqadda oo la ilaaliyo dhaqanka oo la ilaaliyo luqadda waxay ka mid tahay aayaadka Ilaahay lagu garto ayay ka mid tahay marka quraanka ay xambaarsan yihiin baa wuxuu leeyahay wa min aayaatihi khalqu samaawaati wal ardi wa ikhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum inna fi dhalika la aayaatin lil caalimiin aayadaha Ilaahay lagu garto waxaa ka mid ah midabka dadka oo kala duwan cadaan madow iyo nooc kaleba iyo luqadaha kala duwan marka waxyaabaha lagu garto la isku garto oo la isku afahmo oo ma aragtay dadka bini'aadamku ay ku wada xiriiraan luqadda ayaa ka mid ah quraanku wuxuu leeyahay luqadina xoojiya marka Ilaahay uu leeyahay litacaarafu waja'alnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu shucuubtaas waxaa loo sameeyay qabiilooyin qabaa'ishaas in la isku afgarto waxyaabaha ugu muhiimsan la isku afgarto waa Soomaaliga marka maadaama dhinaca diintii maadigan ku guuleysanay marka waxaan go'aan ku gaarnay inaan af Soomaaliga aan ku darno oo ubadka la baro maalinta afka hooyo ee caalamka looga dabaaldegaa ma ahan mid ku cusub Soomaalida in ay xusto gaar ahaan qurba joogta balse waxaa cusub xawliga iyo isku dayo badan oo kala duwan oo ay bulshadu ku hawlan tahay sidii af Soomaaliga sare loogu qaadi lahaa